السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليال maanta waxaan joogaa jaamacadda Almas waxaana soo booqashanayaa kulliyadda geology faa'iidada u leedahay dalkeena iyo ardayda ay fahansiinayaa dhagaxyaha kala nooca dalka laga helo iyo macdanta dalkeeni kadibna insha Allah waxaan rajaynayaa jaamacadaha kala nooca dalka in la isku xiriiro oo horumarka kheyraadka dalkeeni sida annaguna ka faa'iideysan lahayn dad kale ka faa'iideysan ku dadaalnahayn horumarka dadkeena iyo dalkeena iyo xitaa kheyraadkeena inaan ka warhayno insha Allah taasaan rajaynaa inaan la wadaago marka la socda waan salaamay salaamta wakaas hadda waxaan joognaa jaamacadda Almas geology laboratory-ga geology oo macdanta iyo dhagaxa kala nooca dalka laga helo marka siiro tartiibaan ay duubi doonaa kadibna waxaa na fahansiini doona ardayda jaamacadda ka dhigto dhagaxyaha kala nooca dalka laga helo iyo macdanta kala nooca marka ku soo dhawaara aad iyo aadna u mahadsantiin بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ومريم على إنه وحن هاي أرداد دقت الجامعة الماس قارهان كلية الجيولوجيا وحن هاي سمستر 5 هذا واحد كيف أنسيه كلية الجيولوجيا وقرأ نتر الجيولوجيا وعلم يروكا أهمية ودل كولي هذا كان أهمية أدو بلارنا ودل كولي هاي الجيولوجيا عليها وحلوق القيبية إلى سدح قيب أو بتروليوم كا أو شدالك أو أويل كي غاز كا ماينين كا يو قيب تبيها وقرأنا هذا كبلا قيبت بتروليوم كجورج وحقا عاونا يا أويل شدالك أويل كي غاز كا سيدا أصصارن هيد سيدا أو ترل هيد يسيدا بناك وجين هيد أسوا نظيفة ماينين كا هذا كحجيو ماينين كنا وحقا عاونا معدنت سيدا أوكل بران هيد سيدا أوكل صار لهيد هدو تس مركا سوق تكتب سيدا أقود الهيد biyaha waxay ka caawinaysaa qaybta biyaha daaw galo biyaha inay macaan yihiin inay dhanaan yihiin inay wasaq yihiin inay badan yihiin inay yar yihiin hadaa ku plano geology-ga saddex dhagax ugu muhiimsan okay saddex dhagax waxaan sameeynaa xagan dhinacana u leexina oo tusana fahansiinaysa dhagaxyaha kala nooca dalka laga helayo
faa'iidadii leeyihiin iyo xitaa meelaha laga helo dalka gudihiisa. Okay. saddexda dhagax ee ugu muhiimsan saddexda dhagax horta geology-ga saddex qayb loo kala saddex dhagax uu leeyahay kuwa waxaa la dhahaa basement waa asaasiyaadkii midna waxaa la dhahaa basement oo asaasiyaadkii oo ka dhashay labada dhagax saddexa loo kala qaybiyaa laba waa basement kuwa basement-ga waxaa la dhahaa igneous rock haddii Soomaali laga dhigana dhadhaab shiileed metamorphic rock oo asagana ah dhadhaab dhalaan rogan iyo sedimentary rock oo barren oo ka dhashay igneous rock iyo metamorphic rock haddii Soomaali laga dhigana loo dhadhaab lakabeedka waa kuwana example-dooda sida hadda sida ugu muhiimsan sedimentary rock haddii lagu hormariyo dhadhaab lakabeedka waxa ugu badan oo laga helaa Muqdisho iyo magaalooyin ku teedsan metamorphic rock iyo igneous rock ayakana waxaa laga helaa gobollada waqooyi. Okay, marka waxaa tiri kan sedimentary magaciisa af Soomaali ma lagu soo celin kartaa? dhadhaab lakabeed kana Muqdisho laga helaa badankii Muqdisho iyo magaalooyin ku teedsan xeebaha u dhow Soomaali. Okay, labadan kalena metamorphic af Soomaali waxaa la dhihi metamorphic af Soomaali waxaa la dhahaa dhadhaab dhalan igneous rock waxaa la dhahaa af Soomaali dhadhaab shiileed. Okay, kan waa metamorphic waa dhadhaab dhalan rogan Soomaali. Kanna waa dhadhaab shiileed. dhadhaab shiileed. Marka waxaan dareemay in kuwan ka weyn yihiin badankii kuwan kale maxaa difference yani maxaa kale saddexdan dhagaxyaasha kala nooc dhigay oo maxay difference ka weynta waxa kala nooc dhigay kuwaas way ka horeeyaan kuwan waqti ahaan iyo samaysan ahaanba kuwaas waa kuwa ka farcama sedimentary wuxuu ka farcamaa igneous iyo metamorphic oo soo burburay oo mar labaad samaysmay maadaama kuwaas ay ugu horeeyaan saas darteed ayaa ku dhacay inay kala bedelnaadaan oo kuwaas basement-iga ay yihiin oo kuwa asaasiyaadka ay yihiin hakan uu yahay barren-igi ay ka dhasheen. Okay, oo ka samaysma kuwaas marka mid kasta labo method ma nasini ka tantusi kartaan aan aragno sidaan u aragno kala nooc ay yihiin oo xitaa la arki karo oo la yar fahansiini karo dadka. Okay, hadda sedimentary hadda ka bilaabno. This is limestone. Or sandstone. Kan waa sedimentary Soomaa. Yes, sedimentary. Marka maxaa sedimentary ka dhigayaa waa fahansiin kartaa hadda kala garanaysid mise waxa weeyaan ma dhagaxan waa kii macdanta mise waa kan waa kii xeebaha laga helo dhagax biyaha waa dhagax biyaha macdanta waxa ku fiican igneous-ka iyo metamorphic macdanta. Okay, sedimentary wuxuu ku fiican yahay shidaalka iyo biyaha. Okay, marka kan waa sedimentary shidaalka iyo biyaha ku fiican si biyuhu ku fiican yahay. Okay, kuwan kalena hadaa xabad mid kasta noo soo qaadi kartid waan arki karno malahan kan marka la soo dhawaado kan waa waxa uu dahab ku samaysan metamorphic metamorphic quartzite. Okay, colorisa xitaa qurux badan ma sha Allah kala metamorphic waxa ku samaysan dahabka meesha kan laga helo dahab buu laga helaa. Okay, gobolada dahabka la deewaa dhagaxyaasha sabadankii laga helo. Kan kalena igneous-ka this is kan waa igneous rock. kan leftiisana macdanta ku fiican askan. Okay, ma sha Allah. Hay marka intaas laga hadlo kullay macdanta xitaa marka la sii yareeyo wixii noqdaan ayaan ka hadli doonaa ayo marka waxaan qaybta kale aan duubina aad iyo aadna u mahadsantahay Maryam. Maryam waxaan leeyahay su'aal kale maana fahansiin kartaa processka dhagaxyahan kala nooca ku samaysmaan. waa idin fahansiin karaa horta ugu horeen meelaha oo magmada ka soo baxdo oo volkaanooyinka qarxo markay qabowaan ugu horeen waxay sameeyaan dhagaxyada loo yaqaano igneous rock. markay igneous rock qaybtan ay sameeyaan qaybtan igneous rock
نود وفي عنده نصيبت igneous rock sameeyaan igneous rockgaas markuu qaboobo volkaanadii ama magmadii hoos ee ku qabowdo ee banaanka imaato haduu weathering iyo ku dhacaan sediments ka soo baxo oo jabaan qurux noqonayaan sediments-kaas markuu isku tago oo convection oo sameeyo oo isku dhago wuxuu sameeyaa dhagaxan loo yaqaan sedimentary rock oo sameeyaa noocan ku soo baxa marka sedimentary rock ama igneous rock haduu temperature iyo pressure kala helo oo cadaadis iyo oo ku furmo waxay soo saaraan janji sheeba ku dhaca ama metamorphism waxa loo yaqaan waxaan sameeyaan dhagaxan loo yaqaan metamorphic rock. Okay, marka mid kasta process kala nooc iyo soo maraa oo dabiici ah natural ka process dabiici soo maraa ugu dambeyn oo isku soo wada noqdaan hadii uu kan metamorphism kii oo ku dhaco oo isbedel ku keeno metamorphic rock oo noqdo hadii pressure kale uu ku dhaco igneous rock uu noqonayaa asoo igneous rock hadii dabeele iyo weathering-kii wax sababayaan ay ku dhacaan oo jajabo sediments oo noqdo sediments-kaas hadii isku tagaan markale waxay noqonayaan sedimentary rock saas iskaga noqonayaan cycle saas ku sameynayaan waxaan loo yaqaanaa rock cycle. Okay, aad iyo aad u mahadsantahay. bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waxaa waaye Anas Cabdullaahi Xasan ahna dhigata arday jaamacadda Almas weliba kulliyadda Geoscience and Environment waxaana dhigan jiray ama hadda ii dhamaanaya classkii ugu dambeeyay class semester 8 weliba part 2 maantana waxaa jeclaystay inaan kaga hadlo waxyaabaha muhiimadda iyo geology iyo department geology oo si kala bixi karo sida hore loo soo sheegay ama dadkii si horeeyay kaga hadleen geology faa'iido badan oo leeyahay ay kamid yihiin kheyraadka dhulka oo ay soo saarayaan sida macdanta oo kaleeto petroolka biyaha waxyaabahaas oo waxa ku baran kartaa geology-ga soo hadda waxaa jeclaa inaan introduction ka bixiyo macdanta sida nooga caawinaa geology. Let's go. Okay. inta waxaa loo yaala sambalo oo laga soo qaaday gobolada iyo meelo kamid ah magaalada Muqdisho dhexdeeda iyo gobolada inkastoo ay badan yihiin gobolada marka qaybta hore aan ku bilaabno waxa way jantan Soomaal dhagaxyo iyo macdan isku dhex jirta Soomaal waxa waaye waa dhagax iyo macdan isku jiraan sambalo waaye oo laga soo qaaday magaalada Muqdisho dhexdeeda soo jeedin qurux badan yihiin table yar oo leeyahay marka ma fahansiin kartaa processka lagu sameeyo ama sida u noqdeen dhagaxda sida ognahaba wuxuu ku sameysmaa macdamo isku taga hal laba iyo wixii ka badan macdano isku tagay waxa dhahnaa rock waaye ama dhagax tusaale dhagaxa wax ku sameysmanaa macdanka loo yaqaan feldspar iyo biotite iyo quartz iyo waxyaabo isku taga sidoo wuxuu noqonayaa dhagax sidoo kale macdankan sidoo u sameysmaa macdankan wuxuu sameysmaa elements sidoo uu noqon chemistry-ga elements iyo isku taga wuxuu sameynayaa macdan sida inta ka arkaysan sida quruxda badan kuwaan isku tagana dhagaxay sameynayaan kuwaan waxa waaye sambalo kamid ah sambalooyinka macdankana kale waxa loo yaqaanaa peridotite magaciisa ku qoran yahay ana kaasoo qurux badan yahay kuwaan waxa waaye beryl family oo la isku keenay beryl family-gana waxa soo hoos gali kara dhagaxan oo caanka ah aquamarine la dhahayo aquamarine so beryl family nagu jira dhagaxan kale ka ayla la dhahaa qurux badan yahay food ma sha Allah. Okay kana waxa waaye ruby waana row wali lama qurxin sida loogu soo guro waa meesha tourmaline oo nooc badan oo group ah oo nooc badan kala duwan laakiin noocan waxa waaye albite so pink sapphire Soomaaliya waxa ugu badan leedahay waxa waaye sapphire kana industrial sapphire iyo pink sapphire kala yihiin kana waa agate waa laga helaa Muqdisho dhexdeeda laga heli karaa amethyst waaye wuxuu kamid yahay nooc kamid ah quartz waaye amethyst waan ka soo weyn oo qurux badan okay marka
pink sapphire industrial sapphire kan waa mid la kala habeeyay Soomaaliya filaya waa industrial waa mid dabiici ma aha isleeyahay mise waa mid طبيعي واعي لكن wax macna ma sameynaa industrial waxyaabo kale loo isticmaalaa laakiin dhagax oo يعني sidoo u sameeysan shape-kiisana waa shape asaliyan oo ku soo baxo hexagonal kale kan waxa waa wada taqaan cusbada caadiga la isticmaalo waa isna mineral waaye waxa laga helaa Muqdisho waxyaabaha jijiro iyo malaga weynaayo kan waa quartz oo citrine la dhahaa waa rose iyo waxyaabo isku jiraan citrine kana citrine as a citrine is a yellow things ku jiro waaye kan rose quartz waaye kuwan quruxda badan waxa waaye clear quartz ko nadiif ah waaye ma sha Allah so waxa jiro siyaabo badan oo hadda macdanta loo soo bixi karin ee ka mid tahay lack of security and policy oo lahayn ama institution isku qorto inay macdanta soo saarto sida ajligeeda yani waxa oo macdan hadda Muqdisho yani Soomaaliya laga soo saaro la dhihi karo so public ma jiro just private things وانا مع سنتين introduction كان كده. ما